horta sideedaba dumarkeenu waa qaali runtii qiimo badanna way runtii aynu haynaa madaxa inoo saaran yihiin sharaf iyo maamuusna mar kastaba runtii way naga mudan waanaynu haynaa kartidoodana wax cidda fiiri kartaa habeeraati ma jirto laakiin haddana sharciga marka la eego dalka u yaala ee distoorka iyo sharciga la eego koota in loo xidho dumarku sharciga ma waafaqsana waxa qodobka sheegaya distoorka qodobkiisa sideedaad distoorka Soomaaliland hadda akhrido qodobka sideedaad waxa uu sheegayaa muwaadiniintu in sharciga hortiisa waajibaad iyo xuquuq siban ay leeyihiin anna lagu kala saari kareen in jinsi iyo midab iyo qabiil wixii lamada marka in la iraahdo doorashada la qabanayo golaha wakiilada marka la qabanayo dumarka seats xadidan ama 18 seat ama intaas oo koota ayay leeyihiin oo kaligoodba ku tartamaya oo raggu kulama tartamayaan macnaheedu waxay tilmaamaysaa in si gaar ah loo siiyo dumarkii marka wuxuu qodobka waxaan arintaasi ka soo horjeedaa qodobka sideedada oranaya waajibaadka xuquuqdoodu waa siman tahay laguma kala saari karo jinsi marka jinsi hadii lagu kala saaro xuquuqda leeyahay intaas ma xaq iska leh oo jinsiga kale xaq ma laha horta distoorku ma ogola sida oo kale distoorku kama soo reebin kootada ma oran dumar gaar wax gaar la sireena ma oran qodobka labaad waxa waa qodobka 6 iyo 30 ee distoorka Soomaaliland qodobkaasina wuxuu dhigayaa waliba si gaar ah wuxuu ka hadlayaa xuquuqda dumarka wuxuu leeyahay xuquuqda iyo waajibaadka iyo xorriyadaha marka laga hadlayo rag iyo dumarku waa sameeyeen الله wax farqiyo u dhaxaya ma jiro hal qeyd oo kaliya ku xidhan hal marba farqi ay yeelanayaan oo waa goorma waa hadii shariicadu mid kamida ay wax u gaar yeesho hadii ay shariicadu wax u gaar yeesho dumarku waa sax hadii ragga wax u gaar yeesho waa sax laakiin general principle ku wax weeyaan rag iyo dumarku waa siman yahay ilaa in shariicadu mid gaar wax u gaar yeesho mooyaane maantana kootada aynu ka hadlayno shariicadu uma gaar yeelin dumar شرعه ما يقرن قولوا وكيلا برنامج ما كلا جلايو وحلا سينا يا كوتا جار تمرك مركا وقدم كاس السعد وشيء oo sacad uu tilmaamaya in rag dumarka la kala saari karin hadii la kala saarayana cid kala saari karta waa shariicadu kaliya xeer iyo wax la mid ma kala saari karaan shariico kaliya kala saari karta qodob saddexaad baa jira oo runtii aad u muhiim ah qodobka saddexaad waa qodobka 22aad weeyaan qodobkan waxa inta badan adeegsada dadka xuquuqda aadamaha u dooda waliba xuquuqda dumarka oo qodobkan wuxuu ka oranayaa marka la fasirayo xuquuqda aadamaha la fasirayo iyo wixii la xidhiidha waxa loo raacayaa fasirada waxa loo raacayaa sida ay dhigeen bayaanada caalamiga xuquuqul insaanka loo raacaya marka qodobka anagoo ka duulana hadaynu eegno bayaanada caalamiga xuquuqul insaanku waxa ay dhigayaan sida convention kale wuxuu dhigayaa in dumarka koota loo xidhi karo marka dadka qaar bay iyagu ka dilishanaya iyagoo leh distoorka qodobka 12aad baa wuxuu leeyahay fasiraada xuquuqda waxa loo raacayaa bayaanada caalamiga xuquuqul insaanka bayaanada caalamiga xuquuqul insaankuna waxa ay dhigayaan dumarka in koota la siin karo marka distoorku waa ogol iyagoo ka raacaya ay yiraahdaan koota waa la siin karaa laakiin se taa hal shart baa ku xidhan goorta la qaadanayo tafsiirka bayaanada xuquuqul insaanka caalamiga waxay qoreen waa goorma waa marka bayaanadaasi aanay ka soo horjeedin shariicada islaamka laakiin se tafsiirkaasi iyo bayaanada la qaatay hadii ka soo horjeedaan shariicada islaamka waxay dhigaysay lama qaadanayo oo maxaa sheegaya qodobka 128 distoorka Soomaaliland oo maxaa uu leeyahay waxa uu leeyahay distoorka Soomaaliland waxa saldhig u ah shariicada islaamka diinta islaamka saldhig u ah mabaadi'da islaamka ayaa saldhig u ah marka mabaadi'da islaamka ayaa saldhigga distoorka ah distoorka kali marka la fasirayo kow meesha kee oo koowaad la eegaya waa masdarkiisa meesha asalka u ah asalka halkee u ah shariicada waa marka masdarkaas ayaa la eegaya marka hadii la baqa caalamiga la qaato xuquuqul insaanka ama zido convention hadii la qaato ee dumarka xuquuqdooda ka hadlaysa laakiin se ay ka soo horjeedo distoorkeena masdarkiisa ama aasaaskiisa iyo shariica lama qaadanayo tafsiirka lama qaadanayo sababtoo asalkiibu ka soo horjeeda distoorku waa farac iyo qodobada ku yaala asalkiisuna waa maxay waa shariicada islaamka asal iyo faracna qaacidadu waxay tahay isba khilaafi karaan oo farcu ma khilaaf karo asalkiisa taas waa qodobka kale waxa weeyaan marka u tagto hadii la iraahdo baaqyada ay loo raaco tafsiirka distoorka baaqyada caalamiga ah ee xuquuqul insaanka oo mutlaq laga dhigo
ولنا وحكا سوا الله راعيا محاي منايا waxa jira qodobo ku qoran baqaha caalamiga iyo zido convention ba oo tilmaamaya oo si toos ah sharciyada uga soo horjeeda salaana kala qodobka 16 ee zido convention hada akhrido da xuquuq badan oo dumarka sina sharciyada u khilaafsay wuxuu leeyahay gabadhu ilmaha way iska soo ridi kartaa ilmaha hadii iyadu doorato iska soo ridi kartaa wuxuu diidayaa in Allah sa gabadhu ciidada inay tirsato uu diidaya waxa uu diidaya oo uu tilmaamaya waxa la yiraahdo qofku inuu ninka in afar guursan karo waa uu diidaya wuxuu leeyahay rag dumar u badiyay wuxuu diidaya wali in qofkii dumarka uu meheriyo oo wuxuu leeyahay qofkii dumarka cid doontay guursan kartaa niyana cid doontay guursan kartaa marka hadii la yiraahdo tafsiirka dastuurka Soomaaliland qodobka koobta iyadoo la raacayo baaqyada caalamiga waa in lagu fasiraa sida ay leeyihiin waxay manaysaa wax badan oo khilaafsan sharciyada islaamka oo kuwaas ay dhigayaan in la yiraahdo la qaato سادرت تاسين maxay ka soo horjeeda qodobka shanaad dastuurka Soomaaliland oo muxuu oranayaa xeer kasta oo ka soo horjeeda shariicada islaamku waa xukun jira marka xeerka kootada la ansixinaya haduu ka soo horjeedo shariicada islaamka waxa ka jira ma noqonaya waxa sidoo kale arintan iyadana diidaya in la qaato tafsiir mudlaqa oo la yiraahdo bayanada caalamiga waxay qoreen iyo xuquuq insaanka la qaadanayo dastuurka lagu fasirayo waxa kale ka soo horjeeda qodobka 16 فقردي صلابات بكسور جدا أو محاي لا ضحي حكومة ويدي رجل نيسا واري صار حيرر بكسور صار حيرر كاس أو ممنوع عياد دقمة كسور جدا دقمة اللي دكوا أهضم مركونا كود يود إن محوهاي إن هرمور كود دمير كود ما لكن دقمة سوا كوي وقوة شرعات الإسلام كسور جدا marka kaliya wax la ogol yahay dhaqamada shariicada ka soo islaamka ka soo horjeeda oo kaliya xeer loo sameyn kara dhaqamadaas hadii dumarka lid ku yihiin hawlahooda xeer waa loo sameyn kara lise waa goorma waa marka shariicada islaamka ka soo horjeeda marka qodobadaas oo dhan markaynu eegno waxay noo tilmaamayaan dastuurka Soomaaliland si cad wuxuu u qeexayaa kootada wax la yiraahdo dastuurka kuma qorna qodob koota in wax gaar ah dumarka loo sameeyo ma jiro taasi waa qodob kaliya goorta la ogol yahay in wax gaar ah dumarka la siiyana waa goorma waa sida uu sheegayo qodobka 16 uu sheegayo in faqradiisa kooda sheegayso wax weeyaan waa markay shariicada islaamku mid gaar ah u astaysay oo si gaar ah u siisay laakiin wuxuu xeer si gaar ah u siin karaa iyadana ma jiro qodobka afraad raacay arinta waa maxay waxa weeyaan hadii la qaato koota systemka hadii la qaato macnaheedu waxa weyn xorriyadii aad ku dooran lahayd dadkii murashaxiinta ahaa waa laga qaadaya oo waxa lagu leeyahay waxa koota loogu xidhay dumarka intaas dumar kaliya ka dooranaysa rag ma dooran kartid marka xorriyadaadi inaad wax dooratay mudlaqa hada dimuqraadiyada ay sheegi jirtay warta ma jirto waxa ka sii daran inaga maanta systemkeena ma kala eego gobolada qaar baa cabanaya gobolada qaar baa ay ku jireen dad kuraasta ay haystaan goboladii marka la yiraahdo kuraastii markii horeba idinku yareed imikana waxa idin raacaya kuraasta qayb kamida saddex kamida waana dumar siisan marka la yiraahdo maxay manaya kuraastii in muran badan ka dhashay arintaasna oo markooda horeba iyagoo wax yar lahaa intiina marka la yiraahdo dumar baa hadana aad siisinaysan in kamida idina khilaaf kale abuuraysa qodobka kale arinta raacaya waxa weeyaan aadka muhiimka hadii la yiraahdo kootada dumarka kootaha loo xiro oo sitis gaar ah la siiyo su'aashu waxa oo maxaa loo siinayaa marka dadka qaar waxay leeyihiin waxa loo siinayaa dumarka ma soo bixi karaan hadii aan la siinin haddaba waxa jira inta soo cid oo kale dad kale jira iyagoo aan soo bixi kareen iyagana ma koota loo xidhaya tusaalahaan oo kale dadka naafada ah iyagana maxaa la sameeyaa bari haday radan kootahana la siiyo ma soo bixi karnaa maxaa la sameeyaa dhalinyarta maanta in badan oo kamid waxay leeyihiin fuqara noox ma haysano dhaqaale ma haysano doorashada dhaqaale ku xiran tahay iyagana ma wax noqonaysa in la yiraahdo dhalinyartana kootaha loo xidho مساسة نقونيسا كورة ضدك HIV AIDS كقابة يجونا كل discrimination بان نلقو سمي وإن برلمان كانوا قالوا كوتانا لس يجنا ما لسينا يا وحي منا سإنت صعد أوكله وقالك سالنا كوتانا لسي محل وجوا محل وكلا صار يا مركا قدم كسو قدم سنخونتي ماشي كتشروية مركا رونهانتي دولدر وحن كسو جبين يا وحويا دو مركا in kor loo soo qaado oo runtii la dhiso oo waxyaabo badan oo lagu dhisi karaa jira gabadhuna kartida iyo aqoonteeda way ku soo gaari kartaa meel kasta laakiin kootadan oo la siiyaa waxay tilmaamaysaa dhacfi bay tilmaamaysaa qofkii dumarka inaan iman karin meesha ay tilmaamaysaa iyagoo maanta dumarku ay badan yihiin